السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channel ka daawanaysiin waa Leyla Axmed official. channel ka daa ku cusub tahay please subscribe, like, share, comment qurux badan ka soo bixi. hadaa hore noo joogtan daawashada daawanaysa waxaan ku leeyahay aad baan kaaga mahadcelinayaa. sida title-ku aragteenba maanta waxaa wadaa hambalyo wadaa maasha Allah walaasheen Amiiro Qurux oo waxaan ku dhahay qaybta hooyanimo number 1 qaybta hooyanimo soo gashay maasha Allah oo hooyo ilaahay ka dhigay aadno iyo Amiiro Qurux familka oo dhan waxaan leeyahay aad baan u faraxsanahay farxadiina maasha Allah aad baan ugu farxay siba Amiiro Qurux oo ilaahay awlaad siiyay oo waxaan ku dhahay baby qurux badan ee sanad cusub iyo baby cusub ilaahay siiyay maasha Allah asxaabta sharafta leh waxaan leeyahay Amiiro loo soo duceeyo ilaahay afarnood abshir ilaahay uu ka dhigay inay umusheeda caafimaad ku dhameysato insha Allah isha bini aadankan way xun tahay isha bini aadanka dadka xasidka ah bini aadanka oo dhan lama dhigi karo dad xasida ku jiro dadka xasidka inuu ilaahay ka qabto maasha Allah qof walba oo familkaas quruxda badan arko waxaan leeyahay maasha Allah dhaha maasha Allah mabruuq aan ku leeyahay Amiiro Qurux ilaahay waxaan ku dhahay hooyo ka dhigay soo gal qaybta hooyanimada sheekada hadday kow ku tahay number 1 aad taagan tahay sheeka ma kow iyo laba ku joogta gabdhahan waxa tiri kama nixinaayo ha soo galaan sidaas aan ka rabaa inaad ka nixisid ma ahan waa inaad tira soo gal anagana hooyanimada kaaga horeeyay waxaan ku leenahay soo dhawow hooyanimada ku soo dhawow sheekada hadday kow ku joogtaa asxaabta sharafta leh meeshaan hambalyo ayaan video ugu talagalay inaan ugu diro Amiiro Qurux iyo adna channel maasha Allah walaalahay aad iyo aad aan u jeclahay oo waxaan ku dhahay family qurux badan ah oo ku soo biiray baby qurux badan baby maasha Allah baby cusub farxadooda ayaan la fadhi waayay clipkan videogan ayaga ugu talagalay insha Allah like badan saar videoga share gareeya maasha Allah waxaan rabaa inay dad badan Amiiro Qurux soo duceeyaan dadkii waxaa laga yaabaa inaan ka soo daahay dad badan maasha Allah ka soo duceeyeen video ka soo sameeyeen dib malahan hadii aan soo daahay hadaan soo hormaraba farxadu waa isku farxadi qof walba meesha uu joogo uu ku faraxsan yahay Amiiro waxaan ku leeyahay hooyanimada waa soo gashay xijiyo adkeyso oo babyga si fiican u kori oo waxaan ku dhahay maasha Allah hooyanimo lagu ma sheegay maadaama hadda hooyanimada aad ku cusub tahay gabar aad iyo aad qaali oo garabka taagan adna maasha Allah adna garabka taagan oo wallahi qurbaha anaga joogno maasha Allah aad iyo aad anka ku farxnay waana ka maseernay adna waxay ku sameynayso waa qurbaha markii la joogo walaasha waa laga maseeraa hooyada waa laga maseeraa qof garabka taagan dil arko waa la maseeraya waa qurbaan taagana ma haysano maasha Allah farxadaas ilaahay ni siyaadiyo adna waxaan leeyahay booska hooyanimo iyo booska abaynimo ka soo baxday adna waxaan ku dhahay waad guuleysatay maasha Allah walaashana waad saaciday sida u saaciday ilaahay baa ku saaciday insha Allah sida u garab qabatay hooyanimada hadaan ku sheegay saas samee ku dhirin adna garabkaada adna kula joogto adna wax walba ka dhisayso waxaan u maleynayaa inaad u baahneen macalnimo iyo in wax lagu sheego ama wax lagu sharaxo adna waa walaasha maasha Allah qaybta hooyanimadan ayada qaabilsan qaybta walaalnimadan ayada qaabilsan adna waxaan ku leeyahay maasha Allah hore u socokiin koobin Amiiro Qurux adna sidoo kale hore u soco maasha Allah inti xaamila ah oo wali dhalin ilaahay waxaan u baryayaa inuu ilaahay u fududeeyo wallahi uurka ma sahlana uurka ma yara sheekadiisa hooyanimo markii lagu leeyahay horta xaamilnimada inay soo gudubtaa fooshii arkay macaanta badneed waa inay soo gudubtaa Amiiro Qurux waxay dhaaday foosho waa bakeer sokor laga buuxiyay ama foosho saas ma ahane maasha Allah du ilaahay ku fududeeyay
qofka markuu foosh soo maran waxa waaye xanuun walba oo haayo iyo wax walba oo qabsado ma dareemayo markuu dhalo. ilaahay baa ugu talagalay taas, waa ilaahay nimcad uu wato, raxmad ilaahay uu wato waaye. isla markii anagii oo dhalnay, anigaan kula hadlay oo dhalay, waqtigaas hadaa dhishid waxyar ka bacdi ilaahay baa leer ku marinayaba xanuunkii iyo wixii oo dhan waa ilooweysaa. keligaana ma ahan, hooyooyinka Soomaaliyeed dhan aa kula qabaan.